magaalada Garowe waxaa maanta lagu daafuray mashruuc weyn oo dhinaca waxbarashada mashruucan waxa ka faa'iideysan doona ardayda Puntland waxaana iska kaashanaya taabagelintiisa Puntland iyo qurba joogta mashruucan ayaa xoog saari doona waxbarashada carruurta ee maadooyinka sayniska tiknoolajiyada injineerinka iyo xisaabaadka qurba joogta reer Puntland ayaa mashruucan ku taageeraya in ka badan 10,000 oo kombiyuutar oo loo gadayo ardayda dugsiyada Puntland waxaana mashruuca lagu bilaabi doonaa sida qorshuhu yahay 18 dugsi oo isugu jira dugsiyada hoose iyo waliba dugsiyada sare madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo daafurka mashruucan ka qayb galay ayaa ballan qaaday in madaxtooyada Puntland ay sanadkiiba mashruucan ku taageeri doonto 1,000 kombiyuutar si kor loogu qaado aqoonta ardayda reer Puntland si ay awood ugu yeeshaan maadooyinka sayniska madaxweynaha Puntland ayaa wasaaradda waxbarashada gabagabadii ku booriyay inay xoog saaraan waxbarashada farsamada gacanta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xariga ka jaray hotel loogu magac daray Matisol munaasabad loo sameeyay furitaanka hotelkan waxaa ka qayb galay ganacsatada dalka iyo dibadda qurba joogta madaxda Puntland iyo ismo hotelkan waxaa ku baxay lacag dhan $5 milyan waxaana ku maalgashtay ganacsatada gudaha iyo qurba joog sida uu sheegay Maxamuud Cabdinuur oo ka mid ah maalgashadayaasha hotelkan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo gabagabadii munaasabadda furitaanka ka hadlay waxa ay bogaadiyeen dhammaan dadkii maalgashigan sameeyay waxaan ugu faraxsanahay toddobaadka uu sameeyay dalkeenu 7 sano muddada 8 sano waxa uu teelaad arkaysaan iyo runtii quruxda iyo bilicda iyo wadooyinka iyo horumar ka socda dalka waan hambalyeynaya marka qurba joogta reer Puntland aad baan ugu hambalyeynaya runtii milkiilayaasha hotelkan shaqay abuureen bilic bay abuureen fursado ganacsi oo kala dhexdiisa ka dhex abuurmi doona tourismka kor u kici doona dadka service kale u qabanaya dadka imaanaya ayaa badan doona oo iyagana ka sii faa'iidi doona marka waan rajaynayaa inuu najaxo waana ka muuqataa wadadiisii uu hayaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dadka gacanta ka geystay mashruucan inuu rumoobo runtii dowladda Puntland waxay u tahay sharaf waxayna noqon doontaa customerka ugu weyn oo lahaan doontaa maxaa yeelay waa u baahannahay ruuxadeena meelaha dadka ku martigelino wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa maanta qabatay kulan looga hadlayay cudurka COVID-19 ama coronavirus khatartiisa iyo ka hortagiisa wariyeena magaalada Garowe Cabdiqani Fantastic ayaa ka waramaya wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa maanta magaalada Garowe ku qabatay shir looga hadlayay ka hortagga cudurka fayraskaasoo farabadan ku haya caalamka shirka waxaa ka soo qayb galay shaqaalaha caafimaadka iyo ardayda caafimaadka barata dhakhaatiir iyo culimo iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Puntland iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland intii uu shirku socday waxaa lagu soo bandhigay halista uu leeyahay cudurkani siyaabaha uu ku faafo sida looga hortago dalalka la tacaalaya iyo waliba inta qof ee uu haleelay cudurkaasi gudoomiye ku-xigeenka ururka Bunsa iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug oo afka bulshada rayidka ku hadlayay ayaa sheegay in si weyn la isaga jiro xanuunkan agaasimaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Puntland iyo wasiirka caafimaadka Puntland ayaa shacabka kula dardaarmay inay si wada jira looga hortago xanuunkan Bugün akşam saatlerinde on Tuesday night dalka Turkiga kiiskii ugu horeeyay ee xanuunka coronavirus ayaa lagu arkay dalka Turkiga wasiirka caafimaadka dalka Turkiga ayaa sheegay qof ka soo laabtay mid ka mid ah wadamada Yurub laga helay xanuunka waxaana la sheegay in gebi ahaanba qofkaas la karantiilay waxaana sidoo kale wasiirku sheegay in la baarayo qoyskiisa iyo dhammaan dadkii uu la macaamilay wasiirka caafimaadka ee dalka Ingiriiska Nadine Dorries ayaa shaaca ka qaaday in laga helay xanuunka coronavirus iyadoo muwaadiniin dalka u dhashayna ay u dhinteen xanuunkan kuwaas soo gaaray ilaa 6 qof waxaana sidoo kale la sheegay in dad gaaraya 382 qof uu haleelay virusku
haweeneyda doris la yidhaahdo ayaa sidoo kale ahayd xildhibaankii ugu horreeyey ee laga helo xanuunkan waxaana ay sheegtay inay qaaday tallaabooyinkii lagula taliyey oo dhan sida in gurigeeda ay isku karantiisho walaac ayaa laga qabaa haweeneyda doris dhammaan dadkii ay la macaamishay iyo shirarkii ay ka qayb gashay dadka aadka walaacu ugu jirana waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalkaas wargeyska siyaasadda ka faallooda ee toddobaadlaha ee la yidhaahdo Lee Point ayaa kashifay dukumentiyo qarsoodi ah oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu kaga dalbaday waxyaabo badan madaxtooyada Faransiiska kuwaas oo ay ku jiraan diyaaradaha guuxooda ka dheereeya kuwa qumaatiga u kaca iyo gantaalaha xambaara nuclear-ka 22 bishii Luulyo sanadii 2019 ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa warqad rasmi ah u diray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron isagoo weydiistay inay dalkiisa ka kaalmeeyaan dhanka xoojinta iyo tayeynta ciidamada cirka dalkiisa oo ay ku qalabaynayaan agab dagaal oo casri ah waxyaabaha uu dalbaday Abiy Ahmed waxaa ka mid ah 12 diyaaradood oo nooca Rafale kala yiraahdo iyo Mirage 2000 18 helikobtar 2 dayuuradood oo kuwa xamuulka ciidamada qaada oo ay samayso Airbus 10 drone iyo waliba hanaanka tashwiishka danabeed fura iyo 30 gantaal oo ah nooca M51 oo masaafo ahaan gaari kara ilaa 6,000 kiiloomitir isla markaana xambaari kara madaxyada nuclear-ka wargeyska ayaa tilmaamay in dalabka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee hubkan qaadi kara nuclear-ka uu sharci darro yahay maadaama ay Faransiiska iyo Itoobiya wada saxeen heshiiska ka hortagga iyo fidista nuclear-ka ee la yiraahdo NPT waxaa la rumaysan yahay in cidda koowaad ee Itoobiya hubkan u diyaarsanayso ay noqon karaan Soomaaliya oo uu hardan soo jireena kala dhaxeeyo iyo Masar oo isku hayaan biyaha Nile sida uu wargeyskaasi Lee Point uu qoray ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ayaa bilaabay inay fuliyaan shuruudihii la xiriiray dhimista ciidamada ka jooga Afghanistan warbixin uu soo saaray afayeenka ciidankan oo la yiraahdo Colonel Sonny Leggett ayaa waxa uu sheegay in dhimista ciidamadu ay la jaan qaadayso heshiiskii wadajirka ee Mareykanka iyo Afghanistan ay gaareen dhammaadkii bishii hore Mareykanka iyo Taliban ayaa waxay galeen heshiis nabadeed oo dhabaha u xaariyay jadwal loogu talagalay ka bixitaanka buuxa ee ciidamada Afghanistan Mareykanka ayaa waxa uu daadgurayn doonaa muddo ku siman 135 maalmood gudahood 8,600 oo askari oo ka mid ah 13,000 oo askari oo Mareykanka ka joogay Afghanistan waxaana uu si buuxda ula baxayaa 14 bilood gudahood sida waafaqsan heshiiskan ee ku xusan qoraalka wadajirka dhinaca kalena madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xalay waqti dambe oo xilliga Afghanistan ah soo saaray wareegto ogolaanaysa in xabsiyada dalkaas laga sii deynayo kumanaan ka tirsan ururka Taliban taasoo wadada u xaalaysay inay heshiis wada galaan dhinacyadii iska soo horjeeda ayna sidaas ku dhamaato colaadii Afghanistan arrintan ayaa qayb ka ahayd heshiiska ay Taliban iyo Mareykanku dhowaan ku gaareen magaalada Dooxa ee dalka Qatar taasoo hadafka ugu weyn ee laga lahaa ay ahayd in la soo afjaro colaadda dalka Afghanistan ka jirtay muddo 19 sano ahayd Taliban iyo Mareykanka ayaa ku heshiiyay dhimista rabshadaha si loo gaaro heshiis nabadeed iyo wada hadallada xiga ee dhex mari doona taliska Kabul ee uu taageero oo la qorsheeyay inay caasimadda Oslo ee Norway ay ka dhacaan warkii koobnaa oo aad kala socoteen warbaahinta tiyaatar maanta waa naga inta